بنيان ماشا هالكلام ماله وين ماشا بنيان هذيكم كل درستين كل عيوبين ويلوميين تاجرين الشعب الصوماليين يكسرون دي يدودسي يدوهشيسين جمال الصوماليين وين ماشا بنيان في النورة لوبحية في النورة لوبحية فرماجو خيرنا وحلوبحية خير لاوي مقعيدا ايها كسبلي وين يبقى شدنا مقعيدا جامع ماشا بنيان بسم الله الرحمن الرحيم وحويان dadku waxa la yiri waa abogaaya waarkaantay dadka dhalinyarada ama dadka waaweyn dadkii xornimadii soo arkay ee joogay ee calanka ku soo intifaacay ee ku soo noolaaday ee wuxuu yahay garanaya baanu nahay dadkii kitaab baan ugu soo maray anoo iska wax qabsan ku shaqeynaya wallahi kitaab soo maray ilaahay googiya waxa weeyaan Soomaali dhiig baa lagu ogaa geesinimo lagu ogaa wadaninimo lagu ogaa israac baa lagu ogaa calanka buluuga ee shanta gees leh meel xun baa loo maray meel adag baa loo maray waa la soo dhiciyay inta maqana waa la doonayay jigjigaa lagu sida aan sheekada ku maqlay jigjigaa lagu qotomiyay calanka oo lagu sameeyay oo lagu alkumay aswayel maanta anaga nasiibka yaga baa dadka yaga dib u celiyo maanta halka dhigay waxa naga dadaal badan oo naga dagaal badan oo naga dhimasho badan oo naga geesi badnaa ma jirin marka runta loo eego inta aanu soo maray Soomaali weynta kale ma aanay soo marin aniga awowgay baa lagu dilay aabahay dhalay iyo ilmaadeeradii baa 12 iyagoo hal mar la wada dilay oo xabaji dishay oo jigjiga ku dishay ilaa qarnigaas la soo dagaalamayay oo ilaa qarnigaas ayaa dagaalkani socday Soomaali ficilkeedii waanu garanaynaa ragii geesiyaasha baa xabaal galay geesiyaashii baa madhay geesiyaashii baa dhintay geesiyaashii baan cili ka noolayn ragii diidi jiray xuduudka beenta ah ee lagu qaybiyay Soomaali inay soo dhaafaan ragii diidi jiray ragii baa madhay oo maanta cili ka noolayn nasiib darro qaarna way gaboobeen qaarna qurbahay ku ay maanta sirc la joogan waxa soo baxay dadaan garanaynin Soomaali waxay ahayd garanaynin calankii garanaynin 27 sano dadka jiray iyagoo 10 jir ama 5 jir aan waligood yaaloodan dawladnimo arag baan maanta waxba garanaynin dadkii wax garanaya way gaboobeen oo way dhinteen oo way dhamaadeen inina meelahaas iska ludluudayaan inta maanta joogta ee mid waliba intuu baasaboor soo qaatay dawlad kale leedahay kursiga ku fadhiya diyaasbaraha inay maanta sidaa yeelaan cidlay ka heleen cidlaa laga kaxaystay calankii Soomaaliyeed cidlaa laga kaxaystay shacab weynaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa sharafta mudan dhiigale ee Soomaalinimadu ay damaqday ee qaariyagoo nool xabaasha qotay isku aasay waxaan u sheegayaa Soomaali calan qura bay lahayd dawlad kaliya bay lahayd shanta madaxweyne beenta ah waxa loo yaqaanay ninkii gobol barasa baa loo yaqaanay ama gobernatore warigan lama arag maalin dhawato ninka maxkamadaha jooga oo maxay Kenya yaa waxay yiraahdeen qoladii doorashada u doodaysa waxay yiraahdeen dalka waanu kala goynaynaa wuxuu ninkii dalka doonaya Kenya lama kala goynay ninkii doonayo Soomaali baa 10 madaxweyne leh oo ku biir dadka heerka gaaray iyagoo muslim sheeganaya oo shahaadanaya oo ilaa awow islaamnimo ku dhaqmay maanta mujaahidkii wadanigii geesigii cadow jabiskii cadow riixi maanta u dhiibay garoonkii aadan cadeentay ka dhoofiyeen isagoo macawis qaba iyo funaanad yar qaba garbaduuba ee madaxa ka garaacay ee ku dalbaday adoomaydii laga keenay Uganda iyo meel ka daran laga keenay iyo gaalkii gabraaha intay garaaceen isagoo baralaysa qaatay waxa weeyaan nin walba xabaasha uu qotay iyo ilka uu qalloociyay isaga gali doona dhibaatadu way ku dhici doontaa wayna u dambaysaa maanta annaga argagixisana laguma sheegi karo shanta qaaradood ba calankayagu ka biligleeyay gobolka kuma dhaco intaas oo jaaliyadood shanta qaaradood ee adduunku ka kooban yahay calanka onaraf baa ka taagan oo maxaan ku dhaday xornimo doona
أقونسية إنا يهين حرنمضان هالجميال جاسيال مسيحيال سوتشيديال بعدون كنا أقونسية حي لبدا مليان اللي يري والله سيستي محن كنا عبد الكريم شيخ موسى China بحيا اللي China سان شكله كم بقول اللي يري نينك شلال كيدين كهر جوي عبالله كتقال قلي بوها وعيدن كوتي مالنكا بانو مقلي ما قابين أي كارية أدبان متقنا بيجا كحسن الداي وحويان دتكي سلايري مسورة ويسا Soomaaliya kaca shacabka Soomaaliyeed oo kaca gumaysiga diida heeriyada diida awaayaashin iyo abayaashin wixii ay diideen idinkuna diida taasa idin dambaysa wallahi in maalinba mid la dhoofin doono iyadoo ilaahay calan idin siiyay oo dawladin siiyay oo sharaf idin yeelay oo xeebta 3,300 mayl aad leedihiin baa Itoobiya oo waligeed dawlad yeelan bad yeelan doonin مراكب أيوة قدرت يود هاللي وقتين وتراهن محن كنا هذا يدكاد والبوان وفرنا هذا يدين هرم وينه أو أنا هو بيسكعلني كرويدان أو يدل كيدن كتشيد ويدان وأركدونتان هذا إذا ما أنت أيضا ككع الشعب كصوماليات بان لها الله إياه رجع الدولة كتير وحي الضمير له رجع الدولة كتير وحي الضمير له ما نكيف فرمات الله دورنا يا رجع صدا أودح مري Soomaali nimada hal lagu dhinta maanta gacantiina ku jirta ragga yiri iyo shacabka damiir kale baan la hadlayaa lama hadlaayo dooni qaatayaasha lama hadlaayo dhiglaawayaasha lama hadlaayo kuwa wadankooda gadanaya lama hadlaayo kuwa annaga na duusiyay ee argagixida sida nagu sheegay lama hadlaayo inta damiir kale la hadlayaa iyo annaga shacabka maxaan ku jabhadada iyo shacabka yaga waa idin garab taaganahay marna halliicina dabada u tuura magaalo kasta xafiis baa uga furan oo waxa u jooga jaajuus iyo nijaas baa u joogta waar iska ilaaliya iska bixiya annaga jafno ka adkaanay annaga jabhadan ilaahay mooy adoon caawinayso annaga jafno ka adkaanay idinkuna iska bixiya bismillahir rahmanir rahim ogaadaya israacdo ogaadaya midowdo Soomaaliya ha israacdo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto ha israacdo ha midowdo annagu waxaanu nahay dad Soomaaliya calanka Soomaaliyeed ee buluuga waxaan nahay ummadii uu mideeyay sumadeena waa Soomaali magaceena waa Soomaali calanka buluuga waxa weeyaan calankii loo aqoonsaday dawlad Soomaaliyeed oo adduunka looga aqoonsan yahay marka annagu Soomaali ma diidayno Soomaali baynu nahay asalkeena Soomaaliya waxa weeyaan Cabdikariin Sheekh Muuse wuxuu ahaa mujaahid halgamaa oo markiisii hore calanka buluuga ka difaacay cadawga soo jireenka ee gumaysiga Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse saddex walaalo ayagoo ayay ku jireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mid uu ku shiiday midkii kalena lugta midigta kaga gooday Sheekh Ibraahim jeelogaadeen baa lagu dilay oo ku dhintay isaguna sidii ayuu wali u difaacay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto maantana cadawgii soo jireenka ahaa ee ilaa 77 uu difaacay maanta gacanta loo geliyay Cabdikariin Sheekh Muuse maalinkuu dhaawacmay goldoga buu difaacay 83 ilaa 84 weeraradii ballaadhnaa ee Itoobiya ku soo qaaday dalka Soomaaliya ayuu difaacay maalinkuu dhaawacmay walaalkiina maxaan ku dhahay ay ku shahiiday marka waxa weeyaan inagu ummadda Soomaaliyeed hadii aynu nahay dhinac inaan ka wada jeedno dhinacna aan ka wada jirno cadawgaas wuxuu doonayaa inuu ina kala qaybiyo oo ummadda Soomaaliyeed uu gobolba meel ku xiro wuuna inagu xiray runtii markay tahay laakiin waxa la rabaa inta damiir kale inay ka baraarugto oo aynu cadawgeena soo jireenka dhinac ka wada haanoon iska qabanno marka meel kasta dabaqoodhi iyo dhuuniqaata wuu joogaa ee Muqdisho joogaa Kismaayo joogaa Boosaaso joogaa Hargeysa joogaa Jabuuti buu joogaa meel aan ummadda Soomaaliyeed laga dhiibin ma ay jirto ama shacabka reer Ogaadeen laga dhiibin ma jirto hadaad moodaysaan inaga kaliya in la dhiibo Soomaaliya waa la dhiibaa hadda ka hor ani waxa ii sheegay wiil yiri beledweynaha ka soo kacay Nairobi igu sheegay halka xuud intii nalaga ururiyay ciidamada Itoobiya in loo dhiibo ay wadankeeda nageyso waad karan karaysaan maxaabiista faraha badan ee hadda laga soo daayay Soomaali maaha dhammaan Soomaali waa la gadayaa
dhammaan Soomaali waa la wada dhiibayaa marka waxa weeyaan rag iyo dumar baa layna wada dhiibayaa wax la inoo dhaafayna ma ay jirto marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa u sheegayaa inaynu inteena damiir kale dhinac ka soo wada jeedsano oo iska celino gumaysiga Itoobiya ee cadawgeena koobaada anigan hadda dadkii la dhiibay waan ka mid ahaa Somaliland baa la iga dhiibay oo cadawga gumaysiga Itoobiya la igu wareejiyay oo la igu kala gatay marka waxa sidaas waxay dhaafayaan jirin gabadh dhaafaynin wiil dhaafaynin kuwa kale ee ka soo jeeda dhanka kilalka shanaad leeyahay ee media la soo joojiyay iyo Cabdikariin Sheekh Muuse waxba isma dhaamaan maxaabiis weeyaan iyaguna waa maxaabiis banaanka taagtaagan waxa alla waxay ku kala bedelan yihiin ma jiro marka dadka u arkaya dadkaas inay yihiin dad maanta xorriyadoodii haysto xorriyadoodii ku hadlaaya ma ay ahan waa dad maxaabiis oo cadawgu gacanta ku hayo oo maxaan ku dhahay far loo qorayo ku hadla leeyahay khasab ku hadla leeyahay ninkii diida maxaan ku dhahay waa la daldalayaa marka maadaama dad badan hadda uu sugayo waan soo gaabin hayaa Cabdikariin Sheekh Muuse mujaahid buu ahaa halgamaan buu ahaa cadow riix buu ahaa maxaan ku dhahay ciidiisu difaacayay calanka buluugu difaacayay kan ogaadayuu difaacayay ilaahay idamkiisaan rajaynayno Cabdikariin Sheekh Muuse inuu maxaan ku dhahay xorriyadda ogaadaya dib u joogo kuwii maxaan ku dhahay maanta gatay ee gumaysiga u dhiibayna maxkamad waa in la soo taago ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa maadaama aanu nahay ummad walaalo ah oo dhinac ka soo wada jeeda inaan maanta lagu cafiin kuwii Cabdikariin Sheekh Muuse cadawga u dhiibay oo sharciga soo horjoojiyaan oo maxkamadda la keeno oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan horteeda la keeno oo xukun uu ku dhaco cadawgaas raga maanta kulka u dhiibay marka ilaahay idamkiisa rajaynayna Cabdikariin Sheekh Muuse uu soo bixi doonaa xorriyadiisana uu gaari doonaa annagaba waana la dhiibay waana nala gatay maantana maxaan ku dhahay banaanka joogna qofkii ilaahay u qadaray inuu maartay soo baxo uu soo bixi doonaa waxa kale oo sheegayaa kuwii lahaa waa argagixiso ururka oo nalaf argagixiso maaha calankoodii waa kaas maanta aqalka cad ee Mareykanka la hortaaganahay adduunka meel kasta looga aqoonsan yahay wuu jiraa Yurub uu ka suran yahay Ameerika uu ka suran yahay Afrika uu ka suran yahay argagixisa anagu maniin iyaga argagixisa iyaga dabaqoodiya iyaga biiri qaataya iyaga dalkoodii gadanaya iyaga dadkoodii gadanaya marka maxaan ku dhahay waan ka xunaay inay sidaa ku hadlaan laakiin cidii ka qori lahayd yaa la rabaa calanka ogaadeen waa ka aqalkii cadaaya Mareykanku la hortaagana oo saa uga horbibanaya gumaysiga Itoobiya ha dhaco gumaysiga Itoobiya ha burburo ummadda Soomaaliyeed ay israacdo ummadda Soomaaliyeed ha midowdo ilaahay idamkii Cabdikariin Sheekh Muuse xorriyadiisu gaaraya kiyo xay ah Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha xorowdo ogaadeen ha xorowdo meel kasta magaca Soomaaliya shanta gees xididto ha xorowdo ha israacdo walooshii shaqaysto ha dhaco doon raac ha dhaco Soomaali waa ka ha dhaco axmaarka lagu dhex jira ha dhaco dalnimada dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena ninka mas'uulka ahayn ha dhaco ninka madaxweyne noo noqon karin ha dhaco ninka shaarka madaxweynaha xiran ha dhaco waxaan rabaa halkan inaan ka cabdeeyo wax badan baa la soo hadlay dadkii halgamayaasha ahaa ka dhiidhiyay faxashnimadii la sameeyay ay hadleen hadal qof wada dhahayna ma wada dhihin qofka aamusayna kama tegin waxaan kaliya rabaa halkan inaan ka cabdeeyo aniga inta Maqtal Daahir baa la dhahaa aabahay Maqtal Daahir wuxuu soo galay jeel boqol sano soo dagaalamayay isagoo xornimada arkin buu dhintay ana arkin baa laga yaabaa inay dhinto laakiin wali waan dagaalamayaa isma dhiibayo gabadhayda laga yaabaa inay dhimato wali way sii dagaalamaysaa inta diracaas naagi qabto iska daarag inta nin naagi qabto diraca oo alaf way dagaalami halkan xurmataan way dagaalami ogaadeen iyo waa la gaari waa la xorayni hajinta ha joogto ogaadeen iyo way xoroobi halooshida ciyaarka dooni qaataha magacu yaalka harana wax iimaad yeelin haddana wax iimaad yeelin aabaha awowga baa kuna qaataha aabahayna halgamaabu ahaa yaabihii lamida kii halgamaaga hari doona masha Allah waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo hadalku hadduu mid yahay laba lagama dhigo Cabdikariin ma ahayn Cabdikariin qalbi dhagax waxaa loogu bixiyey uma jixin gumaysiga markaa lagu jiiday waa la dilay macawis ka dhacday xidiyuulay waa niraga nimanka xiniyaha waxa wegle ee surwaalka qaba ee aan u baahnay duruucdeedina qaar ka
siiyo kuwaasaa kaleetaa la baahaya inay yeeshaan mana yeelan karaan dalashada wadaninimada waa loo dhashaa layskama yeelyeelo shaan la xidha maaha dhiigga waa loo dhashaa nama qabata in la dhaho OLF waa hargagixisa maaha OLF waa xornimo u dirir shanta gees xidigta ku taala jaahilka aan waxna qorin ilmaha yar ee 22 jira ee aan nasiib u yeelay inaan iskuul la geeyo uma cadhaysnin waxaan u cadhaysanahay ka garay xaar leh irada leh ee isticmaalku soo gunaystay gabra uu qabo ee xaasidka u ah ee ilaa ay gurgurtaan ee u faaraqsadaan aan waxba tari karin kuwaasaan u cadhaysanahay kuwaasi ma turjumaan way ii egyihiin way ii cad egyihiin way ii hadal egyihiin ma ii turjumaan madaxweyne maaha رئيس وزراء maaha يعني dada roob noqon weyday hoosiis baan xarmoodnay way ahaayeen jaajus may noqonin laakiin waxa weeye tallaabo allahay lix ma dhaafto waxay ballan ku qaadeen inuu shicibka yeeli hadalkiisa haddaan hadalkiisa soo xigto kood gareeyo wuxuu ballan ku qaaday farmaajo inuu shicibku jeclaaday shicibku doortay shicibka hadalkiisa yeeli what is that word awa hadalkaagi awa ballantaadii because halkan kaamay jirin halkaa kaama ayna jirin dibnahaad ka tiri waa la ilooba hadalka dibnaha laga dhaho taas waa mid weeye ta kaleeto ee la leeyahay dawladda hore baa waxay saxiiday war dawladdii hore waxay saxiidaaday ii shaqaynayso oo dawladdii hore madaxweynaheedu ii shaqaynayo why you here maxaa kuu daartay ma iska haysta doqonkii hore ii fadhiyey ما هايست إنسجا سيدو نينو قبل واحد ليا وصحيح يعني دقنا تجينا هي شرفتي كاميرا الأجيا because إنسجا واحد ليا وأنا هاي هالكو جاري دونه وحنكو ويديه وحاتري جامعة هذا كسب حي وحاتري education ما صابرتي الدنيا كسر شقي والحكي نين قبل واحد ليا هالشيء يرو دقنا لقولي أعطني هالشيء كيما الدولة الصحيح لي طب وين صحيحي ما صحيحي جامعة الدوقاني ما لا تصبح لي جامعة يانا محمد زياد هيرو بوها واي بو هيرو بوها بتقانا اتليست وحو تقانا إنه دل يحب مسكو ده إنه حريو وحو كتاب جامعة الدوقاني إلا أي مدحويني أديستيا وحاتي ملي أنو ولا دولة أنا كعبسنين ولا قبر أنا كعبسنين ولا وجهي أنا درعات انت انقبوا يا اكبر هل الله هدليا هل الله هدليا قولنا عارك ديتو waxaa meel kasta Facebook aan ku arkaa Soomaali ogaadin waa la dhiibi jiray what is new waa la dhiibi jiray waa ran yaa la dhiibi jiray shicib jiran oo calooshu shaqaysta kayna marka dhaxmaraysid booliisku markuu ku arko qadam markuu rabo Soomaali buu raadiyaa si uu shilin u helo dadka kaleeto dawladda ku shaaga ee madaxweyne raadiska waxay raadiyaan qof oo ay ogaadeen si ay u dhiibaan oo ihmaarada uga helaan kursi no waxa waaye markii hore enough is enough anaga waqooyi baan dhiibtay Soomaaliland baan dhiibtay hadda waxaan dhiibtay Djibouti baan dhiibtay barnaamij yani enough is enough ma yeelayno waxaan la hadlayaa ogaadeen baan la hadlayaa ogaadeen war haddii aynu iska celi kari weyno haddii aynu waxba samayn kari weyno على أقل نكل ديبيو نكل كديبي المول لا يهي لا كجرا نجح مطورو لا نجح مايا listen نين دلا كجرا نجح مطورو محمد جعفر ماجو عروتي سواش تديسي جوجا أنا هلكنا جوجا سأل يعتكريني نهي بكرتا سأل بيصير أوات كيس كرتا يوم علي